mid ka mid ah gabdhihii u afduubnaa kooxaha afduubayaasha ee dalka Kenya gabadhaasi oo lagu magacaabo Xafso Maxamed Luqmaan oo ahayd gabdhaha ugu murugta badan oo xaalada kala duwan ee warbixino kala duwan ay ka soo baxayeen qaarkoodna ay been abuur ahayeen oo baraha bulshada lagu fidinayay inay geeriyootay oo jirdil iyo dhibaato loo geystay u geeriyootay hase yeeshee gabi ahaan arrimahaasi waxay noqdeen kuwa falsa oo been abuur ah waxa ay nooshahay isla markaasna dib ayaa loo helay shalito ayaa la helay waxa laga afduubay magaalada Nairobi xaafad kamid ah oo lagu magacaabo Kamukunji run ahaantii ninkii afduubay oo afduubayaasha kamid ahaa ayaa gacanta lagu soo dhigay kaasi oo xoga badan u sheegay ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ninkan oo ay ka muuqato naxariis darrada wajigiisa iyo sida baahsan ee ugu takhasusay waxyaabaha afduubka la xiriira ayaa la soo bandhigay in goobta lagu hayay ay soo bandhigtay qaabkii ay ku soo fakatay intaba ayadoo la wadaagtay warbixintaasi dadkeeda iyo qoysaskeeda haatan qoyskeedii ay la midowday wax dhib ah oo siyaasi kama muuqdaan inkastoo jirdil iyo haraad aad u baahsan wajigeeda laga dheehan karo iyo dhibaato tacdiidaad loo geystay intay ku jirtay goobtaasi oo ay ka muuqato rafaad aad u baahsan maadaama ay ahayd qof xabsi ku jiray waliba meel cagad camal uu sameeyay oo qaabkeeda uu ah qaab la yaab leh oo ku hayay muddada intaas la eg waxa ay sheegtay in madax furasho ay weydiisteen eheladeeda qaar kamid ah xilli ay la xiriireen telefoonkeeda ay ka qaateen waxay tiri bangi account aan lahaa ayay lacag kala baxayeen oo kala baxay ayay tiri kadibna qoysaskayga ayaa ogaaday oo bangigii account-kayga halkaas ku xiray in arrimahani ayaa noqonaya midii ugu horeysay oo la fashilay si toos ah loona wajaho goobta uu cadawgu ku heystay gabartan Soomaaliyeed arrintaani ilaa haatan laamaha ammaanka si waadix ugu mahadlin oo arrimahan waxa keenay ninkan wuxuu yahay iyo waxyaalaha isa soo taraya ee dililka iyo boobkan ee ku soo kordhay dalkaasi maxay tahay sababta halkees salka ku haysa ma wax abaabulan ba mise wax tuugo ayaga iskooda isku abaabulshay mise wax laga dambeeyo arrimahaas oo ilaa haatan maysan faafin hay'ashee waxay dadku ay guul u arkaan mid kamid ah dadka wax sida baan u afduuba in gacanta lagu soo dhigay farxad muujinayaan taasina ay yareynayso saameyntii hore ee dadku cabsida ay qabeen in walwalka aad ku baahsan maadaama gabar hore ay dileen sida la sheegay kow ay kaga siiyeen oo ay u dhimatay jirdil ay u geysteen taasi oo ayadana kamid ah gabadha dalka Kenya ku nool warbixinadan ay soo gudbin doonaa waa janalka Dooxa Media hadii jeer ay soo gudbiyo barnaamijyada cusub arrimaha bulshada ku saabsan ilaantii waxa ay leeyahay barnaamij kan lacayna intaan ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo ilaantii like share comment intaba waad nala wadaagi kartiin asxaabtiina siyaasi ayaad ku mahadsantiin halkan ayaan ku soo gabagabayn doonaa kulan dabo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh